kulanti wacan daawadayaal idil ahaantiinba waxa aanu ka hadli doonaa xaaladda dalka Itoobiya iyo waliba awoodda soo rogaal celisay ee jabhadda TPLF oo hadda u muuqata in mar kale ay muujinayso awoodda ay u leedahay sii jiritaankeeda. Kooxda TPLF ayaa soo rogaal celisay 3 degmo ayayna gacanta ku dhigtay. Kooxdan ayaa sameysay soo rogaal celin weyn kadib dagaallo qaraar oo mar kale ay ku qaaday deegaanadii hore looga qabsaday. dagaal toddobaadkii hore ka dhacay xadka ay wadaagaan deegaanada Tigreega iyo Canfarta ayaa labada nacba midba midka kale waxa uu ku eedeeyay in dagaalka isagu uu bilaabay. dhinaca kale war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta dawladda ee deegaanka Canfarta waxaa lagu sheegay in jabhadda TPLF ay dagaal ku soo qaaday ayna qabsadeen degmooyinka lagu magacaabo Abkala, Magaale iyo sidoo kale Baraxle. TPLF dhankoodu waxa ay sheegeen ciidamada deegaanka Canfarta in dagaal iyagu ay ku soo qaadeen si ay u carqaladeeyaan howlaha gargaarka bini'aadanimo ee Tigreega uga yimid dhinaca deegaanka Canfarta. TPLF ayaa ciidamada Eritrea iyo kuwa deegaanka Canfartaba waxay ku eedeysay aaga Abcala in ay ku soo qaadeen dagaal qorsheysan iyagoo dawladda dhexana ku eedeeyay dagaalka in ay iyadu ka dambeyso si loo joojiyo gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiinayo dadka ku dhibaataysan gudaha deegaanka Tigreega. Axmed Kaloita, madaxa xafiiska isgaarsiinta dawladda deegaanka Canfarta, waxa uu sheegay xooga TPLF markii ay qabsanayeen 3 degmo inay degmooyinkaasi ay ku sugnaayeen ciidamada dawladda dhexe. waxa uu intaa ku daray ujeedka ugu weyn ee ciidamada gaarka ah ee deegaanka Canfarta loo aasaasay inay tahay ilaalinta nabadda iyo xasiloonida deegaanka marka shacabka rayidka ah oo la dhibaateynayo inay ciidamadoodu gacmaha ka laabtaan ayuu sheegay inaysan suuragal ahayn. haddaba waa sidee xaaladihii ugu dambeeyay dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya. dagaalka waqooyiga dalka Itoobiya 14 bilood ee la soo dhaafay ka soconayay ayaa ka soo bilowday deegaanka Tigreega markii dambana ku sii fiday deegaanada Amxaarada iyo Canfarta waxaana ku barakacay kumanaan qof oo dalkaasi u dhashay. dagaalka bilooyinka dhex maraya ciidamada federaalka iyo kuwa jabhadda TPLF waxa ugu dambeyntii bishii hore looga adkaaday xooga TPLF taa oo sababtay in gabi ahaanba ay isaga baxaan deegaanada Amxaarada iyo Canfarta oo ay dhul badan ka haysteen waxayna dib ugu laabteen deegaanka Tigreega oo ay markii horeba dagaalka ay ka soo qaadeen. toddobaadadii la soo dhaafay marka laga reebo duqeymaha dhinaca cirka ah ee diyaaradaha dagaalka dawladda dhexe ee Itoobiya ay ka fulinaysay bartilmaameedyo ku yaal deegaanka Tigreega ma jirin dagaal aad u weyn oo labada dhinac halkaasi ku dhex marayay. dhinacyo badan ayaa dadaal xooggan u galay sidii ay dawladda dhexe ee Itoobiya iyo jabhadda TPLF ay colaadda lagu soo afjarayo uga dhex bilaabi lahaayeen balse dadaaladaas oo dhan waa ay fashilmeen oo waa ay mir dhali waayeen. haddana waxay u muuqataa TPLF in ay doonayso in mar kale ay isticmaasho awood ballaaran iyadoo markaas u muuqato in ay duulaan ku doonayso in ay cagta ku mariso ismaamulka Canfarta kadibna u sii gudubto cadowgeeda kale oo ay u aragto ismaamulka Amxaarada. waxaana dawladda dhexe ee Itoobiya iyadu hadda aysan jirin wax hadal oo ka soo baxay oo ku aadan dagaaladan cusub ee u muuqanaya soo rogaal celinta awoodda Tigreega ee laga soo sheegayo ismaamulka Canfarta iyo gudaha deegaanka Tigreega. Tigreega oo sanado badan ka talinaya dalkaasi Itoobiya ayaa iyagu hadda waxa ay yihiin kuwa taargad u ah dawladda dhexe ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaana dagaalka uu marka ka dambeeyo u muuqanaya mid yeelanaya wajiyo cusub. dawladda Eritrea oo saaxiib la ah Abiy Ahmed ayaa u muuqata iyadu inay doonayso in meesha laga saaro awoodda jabhadda TPLF.